ay gaari karaan labadaas waa labada lama taabtaanka ah oo marka horeba aad ku talagelayso in aan lagu soo xadgudbin haddii lagu soo xadgudbana lagu xadgudbay danta qaranka Soomaaliya qaranka markii leeyahay shacabka dawlad waa loo dhan yahay laakiin haddana waxaa jiraya dhul iyo bad iyo maxaa la yiraahdaa hawadiisa aad haysatay iyo dawlad yar oo adigu aad samaysatay kaligeed ma ahan noloshu waxa kamid ah inaad horumar dhaqaale samayn karto marka dhaqaalahaagi inaad samaysato wadantaada qaranka in wadanka dhaqaalihiisa la horumariyo in wadankii maxaa la yiraahdaa adeegyadiisa la horumariyo ama ha noqoto mid caafimaad ama ha noqoto mid waxbarasho ama kuwa kale ha noqoto waxyaabahaas oo dhan marka si aad u horumariso hay'ado qaabilsan ayaa jiraya oo ka shaqeynaya macnaha si aad u ilaashato xuduudahaaga waa inaad military iyo ciidan aad leedahay aad xorna u tahay inaad samaysan karto oo aad samayso militarigaas marka wuxuu ahaanayaa militariga ilaalinaya xuduudda dalka iyo madax bannaanida dalka ilaalinaya way madax bannaanida madaxweynaha u taagan iyo dawladda ciidankuna wuxuu u taagan yahay ilaalinta si xoog ah inaan loogu soo xadgudbin sohodimahaas uu dalku leeyahay marka meeshaas ayaan danta guud ee waqtiga dheer ama kuwa ugu waaweyn aan ka arkayna laakiin hoos ayay usii daadegaysaa waxay gaaraysaa meel walba oo danta qaranka ah askariga booliiska wadadaas taagan oo qarax ilaalinaya ama maartay dadka hubinaya meesha maraya inay yihiin dad si nabada ku maraya wuxuu ka mid yahay danta guud ayuu ka mid yahay laakiin waa wax markaas wadadaas iyo xaafadaas iyo magaaladaas ku kooban hadaayo waxaan sheegay in danta guud ay tahay mid loo dhan yahay aysan ahayn mid gobol u gaara ama qof u gaara haddaad si kale u dhigto waxaad doodo badan geli doonaa maanta haddii la yiraahdo waxaad arki kartaa haddii danta gobolkaani wato ay tahay maslaxad dadka gobolkaas u dan ah oon ka hor imaanayn midda haba noqoto mid ayaga ku kooban aan ka hor imaanayn midda guud ee Soomaaliya waxay qayb ka noqonaysaa danta qaranka Soomaaliya danta guud ee Soomaaliya ka mid noqonaysaa sababtoo ah danta guud marka waa danta dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed marka haddaysan toodu ka hor imaanayn group yar xataa hadday yihiin laakiin aanay ka hor imaanayn midda dalka sharciyadiisana ka hor imaanayn ajandihii u degsanaa dalkana aanay ka hor imaanayn waa dan guud marka waxay la tahay dan guud iyo saxaafaddu waxay tahay intaas ayaan uga gudbi karnaa danta qaranka marka waxaa qaabilsan dawladda dhexe sidaan u sheegnay laakiin haddana waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay mas-uul kasta iyo hay-ad kasta oo dalka ka tirsan qof kasta oo Soomaaliya hay-ad kasta oo Soomaali ah ayay mas-uuliyadda ka saaran tahay meesha marka aan rabay inaan u galo waxa weeye saxaafadda muhiimadeeda mar walba lagu soo celceliyaa saxaafaddu waa muhiim saxaafaddu waa inay xor ahaato ayaa la sheegaa saxaafadda haddaad maqasheen waa huba inaad maqasheen qaar badan oo ka mid ah ay yaqaaneen arrintaas si wanaagsan idaacadaha haddaad dhegaysataan marar badan dadka iyadoo la wareysanayo qaar badanna idaacadahay ka barteen qaarna iskuulaad iyo jaamacadahay ka barteen dawladda waxaa loo kala qaybiyaa 3 waaxood oo waaweyn oo la yiraahdo waaxda xeer dejinta ama sharci dejinta oo ah baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waaxda kale waxa weeye waa fulinta oo ah xukuumadda waaxda saddexaadna waxa weeye garsoorka oo ah maxkamadaha waana kala madax bannaan yihiin saddexdood marka laga hadlayo culimada political science ka qaarkood waxay yiraahdaan midda xubin afraad ayaa jirta oo ah waaxda afraad waa saxaafadda oo saddexda control ku leh mid walba in ay daba gasho oo waxa ay sheegayso iyo waxay sameynayso iyo wixii ay tiri waan sameynayaa inay samaysay iyo inay sharcigu hoggaansan tahay iyo in dalka dani ugu jirto iyo in dadku raalli ka yahay in kale ay bannaanka soo dhigto oo dadka dhan la wadaagto marka muhiimadda saxaafaddu leedahay sidaasay u weyn tahay iyadoo sidaa u weyn ayaa haddana waxay dhinaca kale leedahay mas-uuliyadda saaran ee mawduuceen oo dhan isugu soo laabanaya waxaa weeye dalkan markaan ku noolnahay oo dalkan uu yahay horumarkiisa waana ka wada shaqaynay soo maha macnaha ma heli karnaa si saxaafadda dalkeennu ay ugu shaqayso danaha dadkeeda dadka Soomaaliya saas way su'aashu macnaha ma leega socdaa
saxaafadda mar walba waxaa leeyahay waa dhexdhexaad waa sax waa dhexdhexaad laakiin saxaafad cirka ka soo dhacday ma jirto saxaafad waliba saxaafad kastoo adduunka jirta meel unbay ujeeddo ka leedahay qaar ayaa keliya u socda free speech inay faafiyaan in free speech faafiyaan oo ay ka dhigaan muqadas qaar baa u socda inay shuuciyad faafiyaan iyo nidaam hanti wadaag iyo arrimahaas qaar baa u socda inay diimo faafiyaan qaar baa waxay u socdaan dimuqraadiyadda dhexdeedii qaar arrimo ka mid ah liberalism waxa leedahay macnaha in aad loo dabciyo shuruucda shakhsigu yahay waxa ugu muhiimsan ee aan bulshadu muhiimadda uu ka leeyahay shakhsigu oo shakhsiga xorriyaddiisa iyo la siiyo in maaragtay ama liberalism ama conservatism ama maxaa la yidhaahaa labor iyo arrimo la xiriira dhinaca laftiga ah bidix iyo midig iyo waxaa loo kala baxayaa bidix fog iyo midig fog marka waxa weeye haddii aad adigu saxaafad ka shaqaynayso saxaafaddaadu waa inay ajenda leedahay ajendahaas ay leedahay macnaheedu ma aha in laga tago mabaadi'dii saxaafadda ee ahayd dhexdhexaadnimada ee ahayd balansiga ee ahayd in warka aad sheegaysaa war sugan uu yahay marnaba ma aha in laga tago laakiin waxa weeye waa inaad og tahay dantaada guud oo waxan aad samaynayso meesha ay ku biyo shubanayaan xaggee u socdaan idcadaha adduunka haddaad mid walba tusaale usoo qaadato qaarkood dal dantiisay ku shaqaynayaan dawlad danteed ayay ku shaqaynayaan ama dal qaarkoodna waxay ku shaqaynayaan mabaadi' waxaan tusaalahan waxaan usoo qaatay mawduucan waxaa ka mid ah waxaan muddo badan ka shaqeeyey muddo saa u badan maaha 7 sano ka shaqeeyey raadi muqdisho wuxuu ahaa raadiyo dalka waa xilligii kacaanka talis kacaan ayaa ka jiray military ninba qofba suu yidhaahdo taliskaasi laba raadiyaa waddan ku yaalla raadi muqdisho iyo raadiyo hargeysa waxa electronic radio la yidhaahdo labadaasaa jiray iyo telefishinka qaranka muqdisho ku yaalla intaan ka shaqaynaya raadiyaha la sameeyey barnaamijyo badan oo waxtar u leh bulshada ayaa laga sii dayn jiray hooyadii allah u naxariisto waxay joogto u dhegeysan jirtay tafsiirka qur-aanka kariimka galab walba 4 galabnimo soo geli jiray marmar waa dhegeysan jiray laakiin joogto uguma xirnayn waxaa jiray barnaamijyo waxbarasho kororso aqoontaadaa jiray barnaamijyo kaloo badan oo warar iyo aqoon isugu jira ayaa jiray barnaamijyo warar caalamka ah oo xiiso badan leh oo dunida wax naga fahamsiiya ayaan ama samayn jirnay ama ka dhegeysan jirnay laakiin siyaasadda lama ogolayn siyaasadda dawladda siyaasaddan ahayn laga hadlo dawladdu waxay qabatay iyo waxay damacsan tahay iyo ajendaheeda keliya ayaa laga sii dayn jiray caalamkana wararka caalamkana waa xor ayaa loo ahaa marka laga reebo afgembi military oo dal lagu qabsaday si aan looga baran ama loogu dayo lama ogolayn shaqo ka fariisi shaqaale tashaday oo yiri mushaarkan ugu yar sidaan dan nooma aha shaqadana joojino lama ogolayn in laga sheego waddankay doonta ahaato waa xilliyada kamid xilli walba maaha laakiin xilliyada kamid tusaalada ku soo qaaday afduub diyaaradeed lama ogolayn iyo wax la mid ah lama ogolayn dad la afduubo oo sidii qolyihii piracy oo kale haddaan lacagna la siin ma sii daynayno qof shakhsi oo la afduubo beriga Italian ku bandeed maafiyada Italiya waxaas aad u samayn jirtay berigaas lama ogolayn dil assassination qof political assassination lagu sameeyay qof siyaasi oo asoo dariiq maraya ama xafiiskiisa fadhiya la dilay lama ogolayn oo weyn laakiin madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiir lama ogolayn in la sheego marka maxay keentay dibaddii intaas lama helayo warkoodii guryihiina lama helayo dawladdu waxa ay samaysay waxaan ahayn marka meesha waxaa ka soo baxay space ku saabsan dawladda maxaa ka khaldan waxay samaynayso maxay ka baaqsatay inay samayso in arrimahaas la isweydiiyo maxaa amni darro jira in arrimaha la isweydiiyo waa meesha BBC du ay ka heshay fursadda ay ku noqotay arrimaha aan dawladdu ogolayn in la sheego in ay sheegto marka dadku maalinta oo dhan idaacadda muqdisho ama hargeysa ay dhegeysanayaan wararka dawladda iyo dalkooda ay ka helayaan wararka mucaaradku wuxuu isugu jiray qaar hubaysnayn iyo qaar hubaysan
wararka mucaaradkana waxaa laga dhegeysanayay BBC da marka macnihi waad fahmi kartaa dadkuna waxay xiiseeyaan waxa laga qariyo waxyaabo badan oo aysan ogeyn oo idaacadda qaranku aysan u sheegin ayay ka maqlayaan meeshaas xiisuhu meeshaas ayuu xooggiisu ka bilowday ilaa dawladdii ay burburtay oo burbur dhacay marka waxaan rabaa BBC da inaan sheego muddo dheer ka shaqeynaya BBC idaacad Soomaaliyeed maaha waa idaacad af Soomaali ku hadasha waa idaacad bulshada Soomaaliyeed la hadasha dhaqankooda siyaasadooda falanqaysa maxaa la yiraahdaa waxbarashadooda ciyaarahooda waxa ay diidan yihiin waxa ay rabaan waxa caalamku iyaga ka sheegay way u sheegayaan laakiin mas'uuliyad ka saaran in dhaqaalaha dalka horumariso ama mas'uuliyad ka saaran waddankan inaanu kala goyn ama mas'uuliyad ka saaran maxaa la yiraahdaa in dawladda Soomaaliya aan wax loo yeerin iyadu ay madax banaanaato BBC ma ooyeysa haddii dawladda Soomaaliya dawlad kale qorsagaaro ku hayso uma ooynayso shaqada kuma laha way sheegaysaa ama saasaa dhacday leedahay wayna ka tegaysaa annagu marka ma tahay sida ugu habboon oo u samayn karno in idaacaddeena aanay shaqo ku lahayn dhaqaalaheena hadduu horumarayo iyo hadduu hoos u dhacayo inaysan shaqo ku lahayn haddii amnigu xumaanayo iyo hadduu hagaagayo inaanay shaqo ku lahayn in dalku kala go-o iyo inuu mid ahaa inaanay shaqo ku lahayn maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dawladda loo yeeriyo go-aanada ay ka qaadanayso arrimaha caalamiga ah ee dunida ka dhacaya isugu keen mid miyay tahay taas ya yes or no mase hadhow waa laga jawaabaya marka meesha nuxurka ah waxa weeye in idaacadda Soomaaliyeed markaad ka shaqaynayso aad kow ilaalinayso xeerarkii saxaafadda oo dhan dhexdhexaadnimo war sugan war xaqiiqo ah laakiin arrintu waa ajenda maxaa ah haddii BBC du culayska saarto gudniinka gabdhaha si loo joojin lahaa way barnaamijyo badan ka samayso ama VOA ay ka samayso waa wax dan u ah Soomaaliya laakiin annaga ajendaheena koowaad ma tahay macnaha isagana waad ka hadli kartaa laakiin ajendayaal iyada aan mas-uuliyad ka saarnayn ayaad raadin kartaa marka nuxurku wuxuu isugu soo aruurayaa in mas-uuliyadda saxaafaddu ay leedahay inay qaadato oo ku saabsan dadkaaga iyo dalkaaga ma aha inaan idinku dhiirigelinayo ama idinkala hadlayo idin soo jeedinayo ma aha in aad yeelataan mowqif dhagala oo Soomaalinimo ah oo wixii aan markaas mowqifka taageersanayn cambaareeya ama xumaan ka sheega idinkulama talinayo idinku inaad siyaasadda afayeenna u noqotiin laakiin waxa weeye in ajendaha dalka dawladdu dalka kaama xigto ma naga xigtaa dawladdu dalka dadka madaxda ah may dalka naga xigaan waa maya soo maaha in aad dawladda keliya ku hadlaysa maaha dalka dawlad mas-uul ayay ka tahay ajendayaasha ay dejisatay ayaad eegaysaa ajendayaasha hadday yihiin ajendayaal aad u aragtay inay yihiin kuwii ugu muhiimsanaa oo dalka waxaad ka samaysanaysaa barnaamijyo xilliyo kala duwan iyo duration kala duwan barnaamij dheer barnaamij gaaban hal waraysi waxyaabo lamid haddii laakiin ay jiraan arrimo culus oo muhiim ah oo qadiyadda dalka ah oo dawladdu aanay soo hadal qaadin sabab kasta ha keento ilduuf ha keeno inay ku cuslaato ha keeno negligence iyo in aan la rabin in la sameeyo ha keento wax sabab kasta ha keento ajendahaas kama tegaysid adigu waxaad ku darsanaysaa barnaamijyadaada markaan idin leeyahay danta dalkaaga inaad og tahay macnihii ma ahan inaad dawladda afayaan u tahay ma aha inaad dawladda matalayso waa meel aad loogu khaldami kara meeshaas ma aqaan waxaan jeclaan lahaa su-aalihiin qofkaysan u caddayn inuu su-aal iga weydiyo adoo dhexdhexaad ah adigoo maxaa la yidhaahdaa xaq dhowraya labada dhinacay markaa doodaya oo labada dhinacba aragtidooda soo bandhigaya ayaad waxaad ahaanaysaa ajendaha ayaad xulanaysaa kasoo qabo hadda Soomaaliya arrinta taagan oo aad u weyn waa badda la isku hayo Soomaaliya iyo Kenya macnaheedu ma aha inaad wax walba Kenya sheegtana aad qariso wax walba dawladda Soomaaliya ay sheegaysana aad sheegto mana aha macnaheedu in wax walba dawladda Kenya ay sheegto aad ridiso kuwa Soomaaliyana aad bombooniso ma aha waxa weeye meeshaas oo kale waxaad u baahan tahay dadka inaad wargeliso sida xaqiiqdu tahay oo dhab ah
Kenya doodeedo dhan aad faaqido oo habeen dhan aad siin karto Kenya ra'yigeeda iyo doodeeda iyo waxay ku saleynayso iyo sharciyadeeda iyo goortay bilaabtay taariikhdeeda iyo waxeeda aad fiirin karto dadka u soo bandhigi karto macnaheedu waxa weeye qofku markuu go'aan gaarayo go'aankiisu wuxuu ku xiran yahay xogta aad haysato Soomaha hadda maanta halkan aan sugu nimid raas ayaa idin ballamisay raas in la rumaysan karo inay munaasabad qabanayso waana ka suuroobin in maartay tii soo dhigisa haddana ay ka noqoto qofka jeedinaya inaad isleedahay waa laga yaabaa inuu wax kugu dhaamo oo wax ka kororsan karto ama la wadaagi karto doon marka information aad haysato ayaa meeshan ku soo fariisay haddii marka information khalad aad haysato qofka hadlaya haddii been lagaaga sheegay haddii hay'adda qabanaysa been lagaaga sheegay haddii meesha lagu qabanayo wax khaldan lagaaga sheegay haddii saacadii bilaabanaysa khalad lagaaga sheegay marka ma haysatid go'aan fiican ma qaadan kartid Soomaha marka waxa weeye kaalinta idaacaddu ugu jirto ama saxaafaddu ugu jirto bulshada waxa weeye in ay war sugan oo sax ah ay siiso ayna ka siiso mawduuca muhiimka ah oo ajandaha qaranka ah wadiic kale badan waad qaadan kartaa laakiin waa in aad leedahay diary ama book aad ku qorato ajandayaasha idaacadda oo xagga qorsheynta wararka soo socda wararka dhici doona ah waxaad qorsheynaysaa marka waxaad dejisanaysaa ajanda sanadla ah sanadka soo socdo kale hadeer waxaa laga yaabaa doorashooyinku inay noqon doonaan waxa ugu tirada badan oo soo noqnoqda ama muhiimka ah waxaa kaloo laga yaabaa inay kiiska baddu ka mid ahaato waxyaabo kale ayaad fiirin kartaa wada hadalladii Somaliland intaas oo dhan ma dhicin maxaa laga qaban doonaa maxaa yaase bilaabi doona maxay Somaliland taagantaa maxay Soomaaliya taagantaa maxaa analysis waad samayn kartaa marka ajanda waxaa loo baahan yahay sanadla ah dhaqaalaha maxaad ka dhihi kartaa dekada hubiya la dhisayaa baa leeyahay goormay bilaabanaysaa goormay hirgelaysaa meeqa sanay qaadanaysaa sanadkaas inta loogu talagalay ilaa sanadka soo socda maxaa laga qiimeyn karaa in waqtigii la sheegay ay ku dhammaanayso iyo inaysan ku dhammaan doonin doorashooyin dowlad goboleedyada qaarkood laga yaabaa inay ku beegan yihiin marka adigu waxaad samaynaysaa ajandayaasha sanadkaas oo dhan aad samaynaysaa kadibna waxaad samaysanaysaa ajandaha usbuuciga ah khasab maaha bil inaad samayso ajandihii sanadku mar hadduu ku degsan yahay usbuuc walba waad fadhiisanaysaa kan ku xiga ama kan kusii xigaad sii fiirinaysaa waxa muhiimka ah oo u baahan in lasii diyaariyo dadka muhiimka ah ee u baahan in loo baahan yahay in lasii commission gareeyo newska markaan leeyahay qorsheyntiisa news waa wax cusub ayaa la yidhahaa laakiin waxa cusub haddaad fiirso hadda television haddaan daarno caalami ah halkaa ku daarno waxa ku jira oo warkaas aan ka daawanay waa yar yihiin wax hadda dhacay oo aan lasii ogeyn macnaha diyaarad ceer ka soo dhacday qarax meel ka dhacay iyo qof wadnuhu fadhiistay waa ku yar yihiin maalin kasta may war ku jiraa warka meesha socdo dhan waa war lasii ogaa shir baa go-aan laga soo saaraya shirka waxaa lasii ogaa 6 bilood inuu dhici doono markaad ogtahay shirkaasi inuu dhici doono ayaa waxaad diyaarsanaysaa mawduucyada looga hadlaya inaad ogtahay ayaa waxaad diyaarsanaysaa wixii maalintaas marka la gaaro aad soo bandhigi lahayd macnaha contactska dadka aqoonta u lahaa mawduucaas ehelku u ahaa ayaad sii qoranaysaa sii ballansanaysaa adiga waxaad samaynaysaa research haddaad idaacad fiican tahay ama jaraa'id fiican aad tahay ama online fiican website fiican waxaad samaynaysaa research maadadaas ku saabsan waqti badan baa u helaysaa dad waxaas yaqaan inaad la fadhiisato inaad buugaagta dib ugu laabato inaad youtube-ka hadda cilmi badan dhex yaallaa aad fiiriso aad wax ka diyaarsato markaad ka diyaarsatay dadkii aad la hadli lahayd maalintaa go-aanka soo baxa waxa uu noqdo isla markiiba aqoon iyo awood u lahaa karti u lahaa inay commenti ka bixiyaan macno leh oo loo qaateen ah dadkaasna waa ku diyaarsanaayeen iyagana telefoonkaad soo gelin barnaamijkiina waad sii dayn ayagana waad waraysan dadka markaas si fiican baad ugu warrantay xog fiican ayaad siisay marka warka waa la qorsheyn karaa maaha waxaan la qorsheyn karin waa yar yihiin warka aad ugu yar yihiin xataa qofka wadnuhu fadhiistay waa la qorsheyn karaa sababtoo ah waxaa loo qorsheyn karaa idaacadaha waaweyn oo awoodooda leh
waxa u diyaarsan dadka muhiimka ah ee caalamka dhan qof walba taariikhdiisa markuu dhintay la sii deyn lahaa waxa kaliya ka dhiman wuxuu u dhintay iyo goortuu dhintay iyo meeshuu ku dhintay in lagu daro besa ka dhiman Mugabe wuxuu qornaa intaan ka soo tegin BBC soo marka hadda u dhintay laakiin waxa BBC u sii deynaysa waxa hadda lagu orday maaha sidii loo diyaarin lahaa marka qofkii hadda ku orda iyo qofkii dhowr 10 sano u dambeeyay marba qayb ku dareeyay marba qayb ka cusboonaysiinay isku barnaamij ma noqonayaan marka waxa wala sii qorsheyn karaa ajenda marka wadani ah ajenda ah maxaa la yiraahdaa danta qaranka dhowraya idaacadaha way u bannaan tahay inaysan wax aan danta qaranka horumarinayn in ay samayn karaan laakiin macnaheedu maaha in aad wax yeeli karto macnaha waxa aad samaynaysaa waa inay harmless ahaadaan haddii dad xiiseynaya ay jiraan barnaamij aad u samaynayso barnaamijkaasina dan qaran iyo waxba aanu shaqo ku lahayn dhibaato ma laha hadduusan danta qaranka dhaawacayn hadduusan ka soo horjeedin danta qaranka meesha clear ma tahay ma isfahamsannahay marka saxaafaddu sidee ku heli kartaa weeye sidee ku heli kartaa inay kaalintaas buuxiso si sax u buuxiso waxay ku heli kartaa dhinac mas'uuliyad ayuu saaran yahay مسؤولية أي سارنتها أيضا سارنتها مسؤولية لبعضنا وحي سارنتها دولة مد كلو للو ده كرشعب كأنا ويترتا ونسجوني وفسره مد الدولة سارن وحوي صحافته إن إلهاته شرعي ضلكوا إنه حرية صحافته إلاليه إن عدو الله أرك ملاحظ إن صحافته ورياش عدو أرك ما سومالي هتان حوجة بدلو سياسي يصحفي علنا ما هشيسنا معه إني عل نقدان معه إني هشيس نقدان معه أنا هشيس إني نقدان أو أن بروباغندا وربقف سياسي إنه كتب سدو أدون نقطة أفيان أو كله أدون سؤال كيني معه عل إن النقطان معه سبتوا ورك أو أديجنا وحكو حريه هي شغلة وحكو حرنتها هي مركز سياسة نقطة نقف كسياسي كاش إن السجن وركس إنه ضدك جارسيو وحكو حريه هي إنه أديك كوسا مرة أو أديك أدون كدرس مركز وحرير إن سمن أو لو كلا ورق عادنا إن ليس هو بين أنا واحد إسكاله إن وريها إسكاله محيط هاي مركزهاس أدي شرعيات دي إن دولته أي بحسه أو دولة إن وريها الواحد كبين حوضي سيل على السم مدح بناني سيل على السم وريه واحد واجب كواه إن السجع وريه مركان ليه أنا وحكي بدل ميديا هاوس هالنقطة أما شخصي هالنقطة إن واحد حسب كواه إن فرهين تاس الصحة وقبي معناها إن ورسوان أتبحث ورك أتسيد سإنه سنهين ور لحد كتير بيكمل دبعان إنه يهوركاس أولي رهدو بيعلي هبلا شكتي وري هبلا شيء خلط من نقول كذا وكون إنه سدة عدينا بشكت وين هذا قار كريبين أما هذا قار كترين أما هذا قلوعين وركو سدوها وين الدب بساعة سدو ومهم سن أنت ومهم سند إن أتكلم صبح أنت أتربتي هذا كلام صبح وحكم إنه بالانس ليه هذه جروب وحشته هذا سياسة اللي سووا خلاف سيء هي دولة قبلية الفدرال قبلية قاركود إن هذا المتكلية وركيس سيديس أنسيدين مركز يده هدو مهم هي وتسيدين كرتا لكن وقت وفدوا ونقصها بدن وين الدين عكلا رياكشن كود أما جوابته ده وين تكهسا ومعناه هدوي هي هل جروب مقر رميو لبدنا أم سدح دنا وأرين كده حيسي يا مدول بأركض وقبو أتصاب بندقيسا شعب كده دينيسا إن يجوا قان كقاطع وح مركز معقول كا ومن قال كا قفك كو هذلي إن يجوا شجع إن طبعا مركز كقاضي سنس كمسو دوبي سيده واحد سمينيسا إن سؤالو ويدي سؤال بحيث تدخل قبين أنت تكور قبط تدخل وحي قبان واحد هذو كلا قبط معها سيده كيلو تكون كرت تدخل وحي قبان وين تكون بحترت مركز هره
oo barnaamijyo kala dhegeysanayso oo ayaga aad la sheekaysanayso oo aad akhrinayso miidiyaha meelo kala duwan ka soo baxay si aad xog buuxda u hayso saxaafaddu markay intaa samaysa markaas waxay imaanaysaa waxay bulshada ka kasbanaysaa kalsooni ka helaysaa laakiin haddaa professionalismkaaga ku xadgudubto oo ammaanadii iyo fariintii lagu dhiibay aad si guracan u isticmaasho iyadoo ama lacag u sabab tahay ama nacayb qof aad u qabta u sabab yahay ama jacayl koox ka soo horjeeda aad u qabta ay u sabab tahay ama qabyaalad ay u sabab tahay ama gobolaysi u sabab yahay ama ku jirsi ay u sabab tahay de maalin iyo labaad wax khaldi kartaa laakiin maalin walba dadka ma khaldi kartid kumana gaban kartid dalada maaragtay ama titleka saxafi inaad tahay kuma gaban kartid sharciga ku qabanaya sumcadaada lumaysa dhibaato ka soo gaaraysa marka waxa weeye arrinta culus oo u baahan in media houses ku aad isu weydiiyaan waxa weeye qof aan mushaarkiisa ku filnayn qof aan dakhligiisa ku filnayn ma ahaan karo qof si buuxda maalin walba nidaam u ilaalinaya iyadoo weliba lala daba ordayo la rabo in dariiqa laga leexiyo oo waxyaabo loo ofar gareeyo marka waa in laga tashadaa waxaan xusuustaa markii qabtu dhacday dowladdii Soomaaliya markay dhacday waxaa aad u bilowdmay wargeyso fara badan oo 2 xaashiyood 3 xaashiyood 5 10 la isku soo dhajiyay rag saaxiibaha soo imanaya oo qaar saxafiyiin yihiin qaar aqoon-yahano yihiin kale group walba waxbay soo saareen ciidaasay ahaayeen wixii ka soo bixi jiray nin saaxiibkan ka wareysay kala sheekaystay wuxuu dhihi jiray asaguna mid buu soo saari jiray wuxuu dhihi jiray wala kala hari doonaa marka waxaa fiican idaacaduhu inay kala haraan loo baahan yahay konton idaacadood oo raadi iyo television iyo isugu jira website iyo oo mid si buuxda mushaarkiisa u bixin kara shaqaalihiisa aanu ku jiro ama hadduu ku jiro ay yar yihiin oo wax yar yihiin qofka markaad microphone u dhiibto mushaarna aadan siinayn waa waxyaabaha hadda ka horna soo maray oo askari qori loo dhiibay mushaarna aan la siinayn kama filan kartid wax sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo dalka waxaan ka hadlaynaa maxaa la yiraahdaa danta guud aan ka hadlaynaa danta guud u daneynaya kama sugi kartid marka su'aashaas aanu kama jawaabi karo ma hayo jawaabteeda idaacadaha qaarna isku biiraan malaha macnay samayn kartaa website-yada qaarna isku biiraan macnay samayn kartaa xayeysiinta in kor loo qaado macnay samayn kartaa oo laga daayo xayeysiintan aad u liidata idaacaduhu ay qaadanayaan idaacaddu waxaa xayeysiinteedu ku xiran tahay dhegeystayaasheeda qofka xayeysiinta ku imaanaya maaha inuu ku jecel yahay wuxuu soo ogaaday businesskiisa si uu dadka u gaarsiin karo ama fariintiisa idaacadda dadka gaarsiin kartaa inay idaacad hebel tahay marka haddaad tayadaada ku dadaasho income-kaaguna waa badanaya ama dakhliga kaa soo gala xayeysiintu way badnaanaysaa midda kale oo aan rabo inaan ku daro waxa weeye haddana waxay ku soo laabanaysaa idaacadihii dibadda ee lagu dayday ayay ku soo noqonaysaa idaacadaha dibaddu waa idin sheegay danta ay ka imaanayaan iyo meeshay ka imaanayaan fikradday ka imaanayaan fikrad soomaaliyeed oo inta fadhiisatay maxaa noo dana iyo aan idaacad b b c la yidhaha ama v o a la yidhaha samaysanna ma ah waa idaacad ajnabi sameeyey tiimka ka shaqaynaya ayaa waxay ku fikerayaan maxaa dadka u dan xun ka sii daynaa meesha marka qaabka laakiin loo sameeyey lagama dhex bixi karo idaacadahaasi waxay xooggooda u samaysan yihiin war waxa kaloo dhan way soo raacaan barnaamijyada educationku way soo raacaan laakiin waa idaacado wareen adduunka idaacadihiisa war ma wada ah idaacado badan ayaa wax kale ka shaqeeya open university waxay leedahay jaamacadda open university la yidhaha idaacaday leedahay barnaamijyo telefishinay leedahay jaamacadda casharadeeda lagu gaarsiiyey ardayda kuwa sport keliya u go-ana jira kuwa mawaadiic kale u go-ana jira ama u badan music qaar u go-ana jira marka arrintan ku saabsanayda lafteedu in warka uun idaacad walba ay idaacad wareed noqoto oo abarna tasac war sii deynaysa
taa lafteedu waa nooc ku dayasho ah oo lagu dayday idaacadahaas af soomaaliga lagula hadlay. waxaan rabaa inaan soo gunaanado rabaa. taladeedu waxay ku saabsan tahay qolyaha saxaafaddu inay professionalismkooda adkeeyaan, in ay serious u qaataan qofka shaqada ku xadgudbaya, in ajendahooda uu lahaado ajenda qaran uu ahaado, uu ka mid ahaado. ajenda kale waad samaysan kartaa laakiin mid qaran, ajendaha kale waa inuusan ka hor imaanin ajendaha qaranka la sameeyo. in la isku dayo dowladda ajendaheedana in la ogaado oo barnaamijyo laga sameeyo oo dadka dood laga geliyo oo dowladda lafteeda ra'yi kala dhex baxaysa haddaad barnaamijyo fiican ka samayso. wixii ka maqan oon kaa ku jirin sabab kasta ha uga maqnaadeen oo laakiin dan waddankan u ah oo mustaqbalka fog ah 10 sano ee soo socota, 20 sano, 100 sano ee soo socota, khasab ma inaad adigu gaarto, ubadkaaga gaari doona haddii ay yidhaahdo, ama midkay sii dhalayna gaari doona. marka in taasna wixii ajendayaasha mustaqbalka fog ah la eego. 10 sano mustaqbal fog laguma tilmaamo adduunka, mana aha. in la tilmaamo oo markaas la goobo ajendaha markaad dejinayso. tiimkiinuna waad samayn kartaan, dad idinka aqoon badan ama idinkaga dhow mawduucaasna waad raadin kartaan si aad ajendayaashaas u heshiin. dowladduna dhankeeda midda talada waxaan soo jeedinay waxa weeye saxaafadda inaan cadow loo arkin, in saaxiib laga dhigto, in respectigeeda la siiyo, in sidii loo gacan qaban karo saxaafadda loo gacan qabto. shacabkuna dabcan haddii saxaafadda ay ahaato mid si professional shaqadeeda u gudanaysa, shacabkana waxay ka helaysaa respect iyo xushmad xoog leh ka helaysaa. haddii ay ku xadgudubto, haddii lagu xadgudbo oo cid kale ku xadgudubtana shacabka u noqonaya garab. marka waxaan jecelahay inaan su-aalo qaato oo mawduucii aan ka hadlo wixii la fahmi waayey ama ka baxsan oo ka sarreeya bannaanka ah in la weydiiyo si aan dood u qaadano waqtiga yaroo noo haray. waad mahadsantihin aad iyo aad. محمد قاسم جوجا مولانا ميكروفونك ان شاء الله kuwareejinaa. waxaan jeclaan lahaa inaan microfoonka idinku soo wareejino meelaha ugu muhiimsan oo mawduuceena ku saabsan inaad la wadaagtaan Yuusuf si uu usii faahfaahiyo intii uu ka yara tegay. marka insha Allah microfoonka idinku wareejin doona, laakiin mawduuc inuu ku saabsanaado dhowrista iyo horumarinta danta qaranka. maxaa dan qaran ah, maxay tahay saxaafadda danta qaranka waxa laga rabo ayaa ujeedku noqon doona insha Allah. marka qofka ugu horeeya bismillah. Yuusuf Garaad iyo kasoo qaybgalayaasha iyo socodka waa mahadsan yihiin. magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdiqaadir Sheekh Cadde. Yuusuf marka koowaad su-aashan weydiiyo waxay ahayd horta imse qof hadda saxaafadda ka shaqayso. markaas ana waxaan is dhammaanteen aan ka wada shaqaynaaba maadaama saxaafaddii maadaama anaga dhan aan ku wada jirna warbaahintii. marka warbaahinta leeyahay waxaa ula jeedaa social media. marka garan maayo in saxaafadda iyo warbaahinta ay kala duwan yihiin, farqiga u dhexeeya waxaa noo sheegi doona Yuusuf, aan weydiinayaa. laakiin haddii ay isku mid yihiin waxaan u maleynayaa saxaafaddii waa ku wada jirnaaye. waxaa u baahanaa annaga dhankaa social mediaha iyo wixii ku saabsan oo danta qaran ku saabsan dadkiina ayagana loo sheego oo wax laga yiraahdo qaabkay u soo galayaan. markaas kadib Yuusuf waxaan rajaynayaa aad u dhageysta ama uu la socda ugu yaraan saxaafadda waddanka ka jirta, aan noqoto inuu website kala socdo ama radio oo kala socdo. qaab been u wajahaan dabcan marka ay ka hadlayaan waxyaabaha danta u ah waddanka. waxyaabo badan oo danta waddanka ah oo waddanka kala dhaxeeyo ama dhexdiisa ah oo ay tabiyana jirta. marka aad dhageystid marka aad ama aad fiirisid
maxaa is leedahay saxaafadda maanta jirta way ka qaldan tahay way u baahan yihiin inay iska saxaan tusaale ahaan hadda qadiyadda taagantaa soo qaaday waxay ahayd waxa ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya wax warbaahinta Soomaaliya maanta aad uga hadasho waaye tan caalamka oo kaleba waxaan la yiraahdaa hadda maanta warbaahinta Kenya ka jirta si dhexdhexaadnimo ugama hadasho qadiyadaas oo kale ayagoo sabab uga dhigaya si toos uma dhahayaan Kenya saxaafadii si toos uma dhahayso waxaan la safanahay Kenya laakiin waxaa laga yaabaa inay si kale u soo galaan oo ay soo bandhigayaan tusaale ahaan dokumentiyo qadiyadaas ku saabsan oo Kenya ugu taageerayaan ama saxaafadii Kenya ay soo galiyaan TV-ga iyo raadiyoga ay soo saaraan dad aad ugu ololeeyo in badda ay leedahay Kenya oo kale ay meeshii soo saaraan yani waxyaabo badan oo dhiirigelinayo dadkii ogeysiinayo in badda Kenya ay leedahay meeshii soo galiyaan oo markaas kicinaya in libinta ay yeelato Kenya marka si toos ugama soo horjeedaan laakiin halkaas ay markaa u badan yihiin marka saxaafadda in Soomaaliya aad tiraahdo iyagana dhexdhexaad inay ka noqdaan loo baahan yahay dhexdhexaadnimadu waxay noqonaysaa sidaas oo kale xitaa yaanay sameynina wixii jiru waxa sheegaan faraanka kala baxaano marka su'aash marka Kenya kaliya kuma saabsana actually su'aasheeda Kenya kaliya kuma saabsano sidoo guud meelaha waxa waaye maxaa ka qaldanaa is leedahay saxaafadda Soomaaliya maanta qaabka ay xogtabinayso qadiyadaas iyo wax kale jiraba السلام عليكم مركه هو سلام يا أمباستور يوسف جراد سيدو كله حريرية عبد القادر سعوتو وحن ربا هل سؤال وحوجا أكاديميك إن تهانا لقى يابو صحافة اللبا أركتيا جرتو ما إني subjective نقطة مثل إني objective نقطة هذا فسره معناها for example هذا كيس كينيا iyo Soomaaliya muranka badda ama haysashada Kenya nagu haysato badeena hadaan midalan ahay wariye Kenyan ah ma waxaan u sheegayaa dawladda Kenya inay qaldan tahay oo waxaan noqonayaa markaas qof objective ah mise wadankayga xitaa haduu qaldan yahay ma aragtay mowqif dagala sidoo Yusuf yiri ayaan ku raacayaa su'aasha koowaad waa taas أحمد عبد الرحمن سؤال حكتا سيدة يوسف بشاقي وحقاد وير أو عريري لين كأول حياة إن دنت قرنك لإلاليو يو إن ماركتي دولة لمعارضة أما إن لا تعجيره الصحافة إلالين تيدا إن الصحافة جرتو مدح بنان دنت قرنك ما كمت هاي أو إتهاي دولة مركز إن إلاليسو وما سنتها بسم الله السلام عليكم مدن يوسف وكو سلامي صغير سلامي أنا لو سؤال قبا سؤال شكو waxay tahay saxaafadda Soomaaliya marka fiirisid waxyaabo ka qaldan waxyaabo ku saxay sidee kula tahay ayadoo la doorayo danta dawladda iyo danta oo saxaafaddan ayadoo la doorayo sidee isku hor imaan karin dawladdii iyo saxaafadda sidee dhexaad u noqon kartaa ay u heshiin karaan ama ayagoo warka la wado dawladdiina aysan ka xumaanaynin saxaafaddina ayadana aan hadda waxaan aragnaa qofka dadka mucaaradka ee toos ku ah waa la dareemaa waxa waaye waxa la mucaarad sax waaye ninkan wax kale kama sheekana wax maanta dawladdu ka sheekana kan oo xaafadkan dawladda wanaageeda ku sheekana waxa waa laba dhinac sidee aan dhexda u imaan karnaa oo lisla wada kara su'aasha kalena waxay tahay sidaa sheegtay BBC oo ka soo shaqeysay BBC oo ka soo shaqeysay wax bay ku dhisan yihiin wax bay ku shaqeeyaan Soomaaliya marka BBC-na waxa iska leh Ingiriiska Soomaaliya sidee u noqon kartaa hadda BBC marka la dhageysanayo wararka caalamka waxa isleeyahay waa lagu kalsoonaan karaa wax kalsooniya sheeg kartaa marka dalka u fiirisidna warbaahin fara badan marka dhageystid waxyaabo fara badan beenaa soo baxi karo sidee u noqon kartaa wadankeena saxaafadiisa saxaafad lagu kalsoonaan karo marka wax la ka maqlo oo lagu kalsoonaan karo wax sax ay noqon karaan beentana u yaraan karto waa maasanta Ibrahim بسم الله مقعي هو عبد الله بن عبد الله دنجل يوسف قراد هذا ما حسنتهاي موضوعا مانتا أنا جوجنو السؤال اللي حريرة ولي بدنا كصحافة هاو بناتي أيان جعلها إن وحون كاوديو سدح سؤال أو كوبن أيان نقول دنا سؤاله هيجو سدا موضوع عمرك أشرح سي أتكلم واجد سي
warbaahinta dibadda nooga timid waxay xiran tahay shaati ha ahaato midda dowladdeeda ama aragtida ku salaysan in saxaafadda laga sii jeediyo danaha dalkaas ka jiro laakiin lagu sii jeediyo danaha dowladaha kaleeto saxaafad noocee ah ayaa soomaaliya ku habboon inay ka howlgasho oo ay ka hana qaado waa la soconnaa b b c iyo warbaahinada kaleba nooc kale oo shaatiga gashayiin laakiin anagu warbaahin noocee ah ayaan doonaynaa in ay dalka soomaaliya ka howlgasho ma mid muusiga iyo ciyaaraha oo keliya ka faaloota ma mid dhaliilaha iyo xumaanta iyo dowladda liddi ku ahaato saxaafad noocee ah ayaa maanta wacyiga la joogo soomaaliya ku habboon taasi waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waxay tahay soomaaliya saxaafadda soomaaliya maxay dhexaad ka noqon kartaa saxaafadda soomaaliya maxay dhexaad ka noqon kartaa dhexdhexaad maxay ka noqon kartaa arrimaha ay tahay inay dhexdhexaad ka noqoto maxaa ay tahay su-aasha ugu dambeyso waxa ay tahay aan doonay inaan ku weydiiyo waxaa jira hadal aad u qurux badan oo aniga ahaantii soo jiitay oo yuusuf garaad uu sameeyey oo ah siyaasadda iyo saxaafaduba waa meesha dadka aqoonta lah ay markaasi aadaan oo ay berisa ka doontaan waa hadal aad u weyn oo aniga aan hantii aan duugay marka adigooba og ama anagoo ogba in dadka noocaasa ay nooga horeeyaan saxaafaddii iyo siyaasaddii maxaan kaga sugaynaa ama door noocee ayaan ka sugi karnaa inay sare u qaadaan horumarinta danta guud waa mahadsantaa way maqlaysaan soo ma waxaan isku jeclaan lahaa in laba su-aal ama hal su-aal inay noqoto hadday badatana laba noqoto si dad badan u hadlaan oo ra'yi isu weydaarsan waxaan ka bilaabayaa cabdiweli u dambeeyey cabdiweli waxa weeye warbaahinta dibaddu shaar gooni ay gashantaha tiri waxaa laga yaabaa hadalkaasi si khalada loo fahmo b b c 20 sano ka shaqaynayay inta badanna mas-uul ayaan ka ahaa laanta soomaaliga waxaa ka baxaya muddadaas inteeda badan 13 sano ayaan mas-uul ka ahaa waxaa weeye anigu wax dalka soomaaliya ka soo horjeeda dantiisa kama shaqaynayn kamana shaqeeyaan hadday meesha yaallaan waxaa yaalla objectives cad in war sugan aad sheegto in war dhexdhexaad aad sheegto in aad war aad sheegto dadku ay u baahan yihiin waxaa yaalla in aan editorka 13 sano madax ka ahaa weligii maalinta la yimid lama dhihin waxaa ka sheeg idaacadda weligeena dowladda ima soo faragashan b b c qof aan ahayn lama hadal mawduuc la yiri waxaa ka sheegna mawduuc hadda inta la wada fariistay mugabe oo maanta geeriyooday oo wixii la sii diyaariyay la keenay la yiri mawduuc barnaamijkan ma u baahan tihiin hadda dabcan u baahan tahay adaa u baahan laakiin arrin ajenda ah oo dan dowlad ingiriis ah ama dan soomaali ka soo horjeedo leeyahay waxaan siida ma dhicin marka idaacaduhu waxay ku shaqaynayaan caalamiga ah shuruuc iyo nidaam fiican oo runtii xataa looga dayan karo laakiin meesha aan ka hadla waxay tahay ajendaha warka mas-uuliyad aniga lagulama xisaabtamayn soomaaliya farbarashada si ay u xoojiso iyo ardadu wax u barato maxaad ka samaysay cid ugu qabsanaysa ma jirto annaga dhexdeedna waa inaan isweydiino taas maxaan ka samaynaynaa ardayda waxbarashadeeda fursadaha waxbarasheed dalka dibaddiisa iyo kuwa gudaha iyo jaamacadahan tayadooda 100 jaamacadaha ku taalla waddanka laygu yiri oo muqdisho u badan kenya inta aqoon leh kuma taalo maarta ama dad tiro badan ah aad nooga tiro badan ma u baahannahay jaamacadahaas sax ma yihiin waa loo baahan yahay hadday sax yihiin laakiin sax ma wada yihiin shahaadadii bixinayaan ma u qalmaan ardada waqtiga may ka lumayaan mise waxbay baraan ciddii baari lahayd waa idinka waay waa saxaafadda iyadoo u kaashanaysa scholars aqoon u leh oo jaamacad qiimeyn kara ma inaad kaligaa inta microphone qaadato aad qiimeyso marka saxaafadda nooca ay soomaaliya u baahan tahay waa nooc in la isweydiiyey ay tahay laakiin nooc kastoo saxaafado jirta waa loo baahan yahay saxaafado wararka sameeyo waa loo baahan yahay kuwa dhinaca educationka iyo culays saaro waa loo baahan yahay barnaamijyo waa loo baahan yahay entertainment ah dadku waa nafley suugaan waa u baahan yihiin music waa u baahan yihiin kuwa aqoona waa u baahan yihiin marka kuwa ilbaxnimo u baahan yihiin dhaqankeedna meelo uu ku liitaa jirta oo aada ugu liito gudniinka iyo waxaa laga hadlaa inta badan
takoorka dadka qaar la takoorayo oo la faquuqayo ayaa laga hadlaa waa laba culculus weeye laakiin kuwo kaloo badan oo qaar culus iyo qaar fududba leh ayaa jira marka saxaafadda ka mid a waxaa dadka ilbaxnimada bari kara waddanka aad tagto wixii uu kaaga wanaagsan yahay waa laga bartaa macallinka aad la kulanta wixii uu kaaga wanaagsan yahay waa laga bartaa wax haddaad aragto aad awla ama samayn jirta ama aadan samayn jirin laakiin khariban oo dadka qaar samaynayo si aan ahayn maaragtay faduul ayaa loo saxaa maaragtay marka taasina saxaafad nooc walbaan u baahannahay maxaan dhexdhexaad ka noqon karnaa waxaa weeye anuu saan u qaba saxaafadda wax kastaa dhexdhexaad laga noqonaya macnaha maxaan ula jeedaa taas haddii ra'yi uu meeshan yaallo ra'yi hadduu jiro aada u khaldan ra'yigaas in aad adigu sheegi weydo kuma baaba'ayo laakiin in aad sheegto wuxuu ku khaldan yahayna aad sheegto ayaa baabi'in karta ama hor istaagi karta marka caburin ra'yi ma disho ra'yi waxaa dila inta la soo fariisiiyo in stupid yahay oo hadalkaasi soconayn oo si cad bannaanka loo soo dhigo oo lala doodsiiyo qofka ra'yiga saxa ah qaba in lala doodsiiyo hadda ra'yi walba dadka lama soo hordhigi karo laakiin waxaan ka wadaa macnaha wixii dhexdhexaadnimo u baahan lagama baqan dhexdhexaadnimada haddaad hayso wax saxa hadda adaa dooda ku adkaanaya marka dhexdhexaadnimadu maaha inay maaragtay dayuusnimo ma aha marka dhexdhexaadka yaa khalad laga fahmay marka ay hadal joogto markay dood joogto doodda ayaa dadka ku qancinaysaa si dhexdhexaadaadna u samaynaysaa barnaamijkaaga ajendahaaga laakiin waad ka fakeraysaa ajendaha waxaad ka samaynaysaa marka horeba uma baahna inaan badda yaa leh ajenda ka dhigto waxaan u baahanahay kenya maxay ku doodaysaa inaan isweydiiyo waxaan u baahanahay annagu maxaan isku difaacaynaa inaan isweydiiyo kenya hadday weydo maxay samayn doontaa aada uguma baahni waxaan u baahanahay annagu haddaan weyno maxaan samayn karnaa inaan isweydiiyo marka waa tusaale ahaan su-aashaada ugu dambeysa siyaasadda iyo saxaafadda yes waan qoray dadka qaarna aad bay igu dhibsadeen hadalkaas laakiin waana iga dhab mana aha wax aan shaksiyaad gaara ku xumaynayo igama aha waxa weeye saxaafadda weliba midda electronic oo hadalka ku saabsan qof walba waa hadlaa somaha bini aadamka raadiyaha maqlayaa qofka inuu hadli karo isaguna oo wixii sheegi karo ayaa u muuqata dad badanna sidaas idaacadaha ku galeen siyaasadduna waa sidoo kale qofka halkaas soo istaaga waa doodaya dalka dantiisa waa sidaa iyo sidaas uu leeyahay wax uu cuskanayo ma laha kursiga reeruu kusoo fadhiistay adigu reerkiisa ma tihid kamana bedeli kartid kuwaagaadan bedeli karin soomada garan marka waa inaad iska dhegaysato un wax kalood ka qaban karta ma laha marka siyaasaddana way ka buuxaan dad noocaasa saxaafaddana way ku jiraan laakiin siyaasadday ku badan yihiin labada taas hadda waa waddankeeni maaha laakiin hadde in looga haraya maaha saxaafadda haddaad isaga dayso maaragtay mid kaloo aan wax soo barana ku jira hadda taas adaa khalad kale waa doodii sax iyo khalad aan kulahaayoo kale haddaad u barnaamij ka fiican samayn karto kaa sameeya barnaamijkaaga warkaaga waraysigaaga barnaamijkaaga waa lagaa garanayaa haddii aad wax fiican samaynayso marka siyaasadda iyo in siyaasaddana lagama bahari karo waa dalkeeni ciddii siyaasad ku jirta anugu by the way siyaasiisu ma arko siyaasad muddo bil ka yaraan ka shaqeeyey 2012 oo olole doorasho aan isku dayay kadib waxaan soo arkay anuu nin technocrat mas-uul xil ugu magacaabay siyaasi kaama dhigayo haddaadan xisbi siyaasadeed qofka ku jira ayaan anigu u aqaanaa ama markaa xukuumad ku jira oo xukuumadda siyaasaddeeda horumarinteeda ka shaqeynaya laakiin qof xil soo qabtay darteed siyaasi kuma aha duusan ka shaqeynin hadda siyaasad waa aragtida shaksiga cabdiweli intaasaan uga baxayaa ibraahim dowladda iyo miidiyaha macnaha dowladda mucaarad iyo muxaafid siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafid labadaba waa inaad saaxiib la tahay waa inaad barnaamijyada ku marti qaadaa macnaha iyaga markaa qof kasta wuu is og yahay
qofka uu la macaamilaana waa ogyahay hadduu si daacad ula dhaqmay iyo hadduu si qalloocin ah oo ku qalloocinayo ula dhaqmay dowladda haddaad ku qalloociso way ku ogtahay inaad ku qalloocinayso macnaha wasiirka aad ku qalloocisay ama xildhibaanka ku qalloocisay waa ku ogyahay kan mucaaradka haddaad axsaan u samayso gooniya ama aad ku qalloociso wuu ku ogyahay weliba markaad laba nin oo ishaya ama laba gabdhood oo ishaya aad mid ku qalloocinayso kan aad u danaynaysaa wuxuu ku ogyahay inaadan qiimo lahayn oo berri haddii waxa hadda idinka dhexeeya ay dadka loo idin dhex maraan inaad saa ku samaynaysa marka waa in lagu ogyahay ood meel dhexe taagan tahay mar walba ayaa sida ugu habboon ah BBC waa sax waana ka warramay warar lagu kalsoonaan karay sheegtaa waxyaabo badan oo looga baahan yahay in looga daydana waxaa ka mid a principleska ama maxaa la yidhaha editorial guidelineska online way waa akhrisan kartaan waxay ku jiraan qolyo dacweyn jiray markaan meesha ka shaqaynaya qaara dhowr jeer ku bannaan baxay bushaas horteeda especially berigii Ethiopia ciidamada meelaha joogan rag odayaaloon mar la kulmay waxaan u sheegay guidelineska BBC waa kuwaas editorialka buuggii baan siiyey copy ka siiyey xataa dowladda Ethiopia copy baan ka siiyey waxaana dacwad dheer oo liigala looma baahna bannaan baxyo looma baahna fakisiyo email badan looma baahna idaacadda waxaa ka baxa qarsoodi ma aha hal wax oo jabinaya guideline-ka meesha ku qoran buuggaas ku qoran haddaa ka heshaan intaasaa iga adag marka guideline-kaas ayay idaacaddu ku soconaysaa guideline-kaas waa online wax badan oo cilmi saxaafadeed ayaa ku yaalla fikir badan oo qaarna sanad la ururiyay qaarna editors senior ay wax ku contribute gareeyeen ayaa ku jira qaarkood waxaa kugu dhalanaya maaragtay ra'yi cusub ayaa kugu dhalanaya markaad akhrinayso dabcan luqadda ingiriiska ku qoran yihiin qaar aan ka tarjumay waa jiraan hadda ka hor wariyaal beri sii horreysay aan ku tababaray aan jecelahayn inaan dib u daabaco hadda waa out of print waxaan rabaa axmed cabdiraxmaan waa su-aal aada muhiim u ah anigu mar kasta saxaafadda waxaan qabaa inay objective ahaato waxaan u jeedaa in waxa dhaca ay soo gudbayso inay subjective ahaato ma qabo oo ay ahaato dantaydu maxay ku jirtaa sidaasay dantaydu ku jirtaa hadda markaa waxaad khaldaysaa inta kula dantaa had khaldaysaa anigu xaqiiqada haddaan kaaga been sheego xaqiiqadii waxba kama beddelayso waa khatar aan kuu qariyey haddii dirto maxkamadda hayga oo nala ka soo badiyo waa nalaka badiyo waanan ku dhihi karo anala ka exday kana ahayd kaas ahayd waa taa wax dambe ay imaanaysaa macnaha waxaan rabaa anigu waxaan jecelahay objective reporting iyo journalism midda aan ku talinayaana waa taas weliba soomaalida waa uga digayaa sababtaa waxaan nahay dad aad u caadifada u jecel soomaalida wax walba noola wanaagsan soomaalida wax walba gar ku leh markay ajnabi noqoto caddaanna ma nihin madowna ma ahin meel dhexaan nahay marka dadka madow baan leenahay dadka cad baan leenahay sida inaa anagu cirka ka nimid marka waxyaabaha emotionka ku saabsan xaqiiqo badana kuma salaysna xaqiiqada in lagu saleeyo oo warku hadduu qaraar yahay iyo hadduu macaan yahay iyo hadduu kuu roon yahay iyo hadduu kuu daran yahay labadaba in lasoo bandhigo ayaan qabaa laakiin waxaa jira haddana line ayaa jira aad khafiif u ah oo u dhexeeya BBC hadda ka soo qabo waxaa la yidhaahdaa lama ogola qofka wariyaha ah inuu comment bixiyo wariyaha BBC-du comment ma bixin karo laakiin wuxuu samayn karaa analysis lafagur ama falanqayn ayuu samayn karaa comment maxay tahay comment waa ra'yigii sharciga dawladdu soo saartay catoosha ka report garaynaya ma dhihi karo aniga se ila tahay sharcigan ma soconayo waa comment laakiin wuxuu dhihi karaa sharcigaas meesha dawladdu usoo saartay meel iyadu ka talisa maaha awood ay ku tagtana ma laha marka way adkaan doontaa inay ka dhabayso inay fuliso waa hadday run tahay saas macnaha labada farqiga u dhexeeya waad aragtay mid factiska iyo xaqiiqooyinka jira ayaad ku salaynaysaa midna adigaa la soo booday
sidaad jeclaan lahayd amaad nibcaan lahayd aad ka sheekeynaysaa marka midda aan ku leeyahay objectivity-ga waxaa daba yaalla objective ama maaragtay wax waaqici meel dhihi jiray afcarabiga waaqiciga ah waxay ku salaysan tahay iyaduna hadda wax walba run oo dhan sheegis ma rabtaa la yidhaaha waxyaaba aan bulshada u qalmin in lasoo hordhigo intaad soo hordhigto de waa xaqiiqo kuguma filna taasna decency waa inuu jiro dadka culimmadu hadda markay ku wacdinayaan ama ciyaalka dhalinyarada yaryar ay barayaan salaada weysadu siday kaaga jabta haddaad farajkaaga taabatay leeyihin soo maha af soomaali kuma sheegayaan macnaha waxay rabaan inay asturaan xoogaa yar ay qariyaan anigu marka hadhow qofku gooni u weydiinaya idaacaddu marka waxaa shacabka o dhan kusoo horboodaysaa wax walba isagama sheegi kartid wax aad og tahay in dadka wiil iyo aabihiisa hooyadiisa isla fadhiya inay dhegaysan karaan iyo xaaskiisi ayaa lagaa rabaa inaad usoo dayso wax dadka maaragtay damiirkooda waxyeela aanay noqon su-aashaada kale axmed waxa weeye waa isku dhex daraan maraynaa labada su-aalood jawaabtooda cabdulqaadir sheekh social media saxaafadda waa ka mid yahay waana ku faraxsanaana su-aasha keentay waxa weeye social media waa saxaafad wixii waraaq aad qof u dirtay ama messenger aad ugu dirtay saaxiibka wixii ka ballaaran oo shacabka aad soo dhex dhigaysid waa saxaafad laakiin dadka badankiisa uma arkaan waxay kaa rabtaa inta shuruuc ay kaa rabta saxaafaddu ra'yigaaga waad sheegan kartaa dabcan shaksi baa tahay laakiin waa inaadan war ka dhigin ra'yigaaga inuu yahay aad dadka tusto anigu waxaan qabaa saanaysaan ama waxaa wanaagsan saanaysaan ila wanaagsan waa social media waa saxaafad maxaa saxaafadda maanta ka khaldan taas waa midaan ka discuss garaynayno maalin gooni wax kama khaldana saxaafadda soomaalidu wax badan oo horumaray samaysay taariikh yaroo bobsiis haddaan ku celiyo aniga mar aan halkaan imid anoo london ka imid 1994 1995 labada sanaba waa imid midka ahayd hadda waxay ahayd 1995 ayaan safarkayga 1995 ayaa waxaa dhacday nin suxufiya weyna waxaa mid ka mid a warlordska magaalada ka talinaya xabsiga dhigay marka arrintiisaan kala hadlay wuxuu igu yidhi wariyama waxaa lagu noqdaa maaragtay in b b c du ku waraysato maxaad ninkan u daba socotaa ninkan wariye ma aha dood dheeraan galnay waxba waa ka qaban kari waayey laba safaroo isku dhex jiray ahayd waxay ahayd inaan ruwaandho tago soo laabta haddana ruwaandho markaan tegey ayaa waxaan ugu tegey gabar b b c dan ka wada shaqeyno ingiriis ah oo hadda aljazeera joogta oo tababaraysa wariyaal ruwaandho ah waxaan ku yidhi waxaan shaqadii b b c da maahan projectgan muxuu yahay waxay tiri waxaa maalgelinaya oo kharashka bixinaya hay-ad la yidhaahdo care oo maadaama dagaalkii wariyaal badan lagu dilay qaar kalena ay carareen isla markaasna idaacadda mil collin la yidhaaho ay ka mid ahayd lagu eedeeyey inay ka mid ahayd xasuuqa dadka geysanaya ay tilmaamaysay meelaha lagu dhuumanayo dadka iyo si ay u raadiyaanoo u dilaan ama ay tilmaamaysay ama ay marna ay tilmaamaysay marna ay xumaanta dadkaasi qabaan ay faafinaysay si loo dilo waxay tiri marka in saxaafadda laga hagaajiyay dalkan oo tababar fiican la siiyo ayaa la go-aansaday sidaasaana marka b b c da lagu weydiistay inay tababarka bixiso lacagta ku baxaysay waxaana hay-ada kala qaabilay waxaan u sheegay situationka waddankeenu ku jiro waxaan ku heshiinay inaan projectigaas oo kala raadino xafiiskeena bush house kama fogeyn markaan lana ku laabanay project yaraan sameeyey waan u geeyey gabadhii baan weliba isu raacnay nala kama hoos qaadin kadib hay-ado tiro badan ayaan soo maray lagama aqbalin waxay ahayd 95 soo maaha aakhirkii EU-da ayaa lacag bixisay tababarkaas fayskiisa koowaad waxaa la sameeyey face mahana pilot tijaabo barnaamij ah oo tababar waxaa la sameeyey 98 4 sano ayaan daba socday
sagaashan iyo sideedii meeshaan u socdo marka waa meeshan waxaa xamar ka jiray 3 raadiyo yaa qiyaasi kara yaa lahaa idaacadahaas cali mahdi caydiid iyo cusmaan caataa lahaa 3daas mas-uul ay u kala shaqaynayeen hal raadiyo kalaa waddanka ku yaallay hargeysa ku yaallay oo weliba raadiyo hargeysigii la yaqaanay maahayne markii lasoo laabtay meel yaroo la abaabulay oo garoon banooni lagu cayaari jiray agtiisa ah ayaa laga sameeyey oo raadiyo hargeysa loo bixiyey oo dowladdii cigaal markaas ayaa jirtay inta kale waxaa jiray wargeyso waxaa laygu khasbay shuruudda ka mid ahayd in tababarkaas aan bixinno oo EU lacagta bixiso shuruudaha waxaa ka mid ahaa in intaasoo idaacadood madaxdood ragga maaha ninka idaacadda haysta mas-uulka iska leh uu soo ogolaado in tababarka la siiyo wariyaashiisa ayna la fariistaan kuwa kale marka kii muqdisho kulligood waa soo samayn waraaqihii waa soo samayn waxaa jiray raadiyo kalaa jiray oo gaalkacyo ku yaalla oo waa community radio la dhihi jiray laakiin cabdullaahi yusuf baa aduu dusha ka ogaa raadiyahaasna waa ku jiray isagana waa ka soo dhammayn waxaan isugu geynay markaas beriga isu socodku waa yaraa dadka sida hadda laysu dhex marayo ma jirin qolyihii xamar waxaan isugu geynay 3 idaacadood iidaan u khasabtay marka in lagu bixiyo tababarka muqdisho ma ogoleen in la yimaado 3 dad baan commission garaynay raggii la shaqeeyay qaar fadhiya waa uga mahad celinayaa waxaan isugu geynay meesha la yiraahdo Yusuf Xasan ayaa igala shaqeeyay waxaan isugu geynay marka waa xusuustaa wiil wariyaasha kamid wuxuu yiri waa markii ugu horeysay xaafadaas raadiyo cali mahdi ku yaallay aan ka soo gudbo oo meel kale imaado soo ma garan qoladii gaalkacyo iyo garow iyo laga qaadayna may doonayn inay halkaa yimaadeen marka inay yimaadeen marka waxaan ku darnay tiimka hargeysa meeshaas ay saxaafaddu 98 aad uma dheera soo maaha iyo television waxaa jiray hargeysa ka samaysnaa oo la dhihi jiray televisionka hargeysa oo private ahaa meel yaroo iska macmalaho marka maanta marka la fiiriyo iyo idaacada live inaad sameynaysaan iyo telefishinada intaa la eg iyo discussionada aad sameynaysaan iyo raadiyaasha iyo website-yada horumar weyn ayaa la gaaray marka horta mar walba hoos yaan la isu dhigin kor ayaa loo socdaa horaa loo socdaa tallaabooyin badan oo fiican la soo qaaday marka meeshan joogna sideen uga gudubnaa aan dhahna mahana yaan la dhihin maxaa la yiraahdaa xageen higsanaa aan isweydiino laakiin yaan la dhihin maaragtay maxaa ka khaldan saxaafadda Soomaaliya dalal badan ayaan ka horeynaa Afrika ah dalal badan ayaan ka saxaafadda horeynaa pressure-ka social media ku hayo saxaafaddana ma aha in looga tago professionalism-ka anaa warkii waxa kala hormaray Facebook qof wax ku qoray ama Twitter ku qoray macnuhu ma aha war in la sheego way sahlan tahay laakiin warkan macnihiisu muxuu yahay haddii dayaaradihii Kismaayo la yiraaho waa inay muqdisho soo maraan intaas inaad sheegto waa muhiim laakiin waxa ka muhiimsan inaad ii fasiri karto maxay keeni kartaa siyaasad ahaan maxay keeni kartaa bulsho ahaan maxay keeni kartaa ganacsi ahaan maxay keeni kartaa humanitarian ahaan maxay keeni kartaa dhan walba aad iga tusi karto marka aqoonta iyo muhiimaddu waxay ku jiraan analysis-ka iyo fasiraadda maaha warkan la soo hormaray maaha oo wax kale ku darta adan aqoon nin saaxiibkay hadda kor ugu yiri hebel hal wuxuu madaxiisa ku jiro kugu tuuraya markuu ku yimaado si qurxan uu sheegaya laakiin hal su'aal hadda ka weydiiso kama jawaabi karo macnaha aad uma soo diyaarsan waxaas qaybta labaad su'aalaha dhankan muslimna waa dhameeyay malaynaya haye masanta badda kaliya la weydiiyay taas badda aad ugu dheeraaday example baan soo qaatay anigu kulay laakiin kuma laabanay hadda waxaan codsanaynaa in hal su'aal laga dhigo su'aashan 3 su'aalood kaliya aadan isdaba dhigin si dadka kale ay u helaan waqti iyaguna ay su'aalahooda ku gudbiyaan iyo inaad soo gaabisaan insha Allah inaad soo gaabisaan
su-aal yaroo xagga gadaale layga soo dhiibay maamulka waxay leedahay aqoontu intee la eg ayay ku leedahay saxaafadda iyo mawduucan macnaha waxaan u fahmay suxufiga aqoontiisa iyo xirfadiisa oo sarreysa intee la eg ay ka qaadan kartaa mawduucan ka hadlayno saasaan u fahmay su-aasha koowaad anigu gudbinayo waxaan siinayaa ninka aadka u dhiiran hadda hoos buu fiirinayaa shaatiga cadwata ayaan ku hormarinayaa kadibna catoosh aan ku xijina insha allah بسم الله aad baan u mahadsantahay yuusuf faraxsanahay in aan kasoo qayb galo aan ka mid noqdo mawduuca laga hadlay waa mawduuc maaragtay specific ah maaragtay si general loogama hadlin oo maaragtay kaalinta lama oran warbaahinta inkastoo aanay saxafi aan ahayn walaakiin waxaan rabaa in aan maaragtay hal su-aal aan kuweydiyo ku saabsan waxaan dhegaysanaa aragnaa in badan idaacado badan oo magaalada ka jiro in ay inta badan ay ka hadlaan waxyaabaha aan danta qaranka aan ku jirin sidee dadka ayaga oo saxaafadda ka shaqeeya sida idaacadaha ama mid qoraal social media ha ahaato ilaa saxaafaddii inta badan telefishinada iyo idaacad kaste waxay leedahay telefishin waxay samaystay page ay ku leedahay social media Twitter ha ahaato Facebook ha ahaato dhammaan noocyada kala duwan lagu wada xiriir sideen ooga dhigi karnaa ama aan idaacadaha ka jira haatan Soomaaliya guud ahaan ama magaalada Muqdisho aan ku bari karnaa in ay mar walba ay maaragtay danta qaranka mawduuca maanta ku saabsan inay xoojiyaan halka ay inta badan aan maanta aragna in waxyaabo badan oo ummadana ugu jira ay buunbuuniyaan aad baa u mahadsantahay axmed xuseen joogi yuusuf waan salaamayaa madashana waan salaamayaa qolada noo soo qaban qaabisay raasna aad baan ugu mahadcelinayaa hadalkaagii hore bilowga arrin aad ka araratay baan rabaa inaan weydiiyo inta badanna dadka is weydiinayaan warbaahin badan oo Soomaali ka jirto ama telefishinna ha ahaadaan ama idaacadaha ha ahaadaan uma samaysno inay iyaga isbixiyaan oo miisaaniyadda marka hore loo sameeyay idaacadda lagu wado tusaale ahaan wariyaha mishaarkiisa qalabka waxa xafiiska lagu wadayo waxaanan ognahay wariyaal fara badan markuu waaga baryo markay magaalada aadaan ay warka doonanayaan inuu ku xiran tahay waxa ay soo helaan lacagtooda inta ay intaa jirto dhaqanka ceenkaasa inta uu jiro sidee loo helayaa warbaahin la jaan qaata warbaahinta adduunka ka jirto بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وناكسن دمانتي هل سؤال قوا مدني تاس أو يعني دنك صحافة مركا أوفير نمانته ملاديه كلا دنك السوشيال ميديا اللي يرد أنت بدن وحيالها مركي واحد عن ماشي لوجا بهنا إنه وريه كهدلو أما وكفالو ذا وحيالها دعاي ama markaas xaalad jirto inuu ka faaloodo wariyo ma dhihi karnaa maanta aad uga cabanayna dhanka social media oo kale qof aan asaga shaqadiisa ahayn yani howlihiisana aan ahayn inuu ka faaloodo waxyaalo loogu talagalay inay ka hadlaan warbaahinta mahadsantahay dadka dhawaa wada gaarsiin doonaa inta macquula fadlan sidii loo kala horreeyaan u siin doonaa laakiin su-aasha abaara yani faahfaahinta kale بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وورين بلشة ورتي إذا وحربنا كعضة إن يسوع جراد وياي روح عن هذا جعل هاي كورا قانون دور سنتا. مركا مدن وزير هذا بدو ما سنت هاي. سؤال شهر إنه كويدي وحيت هاي. بعد ترى الصحافة وإن النقطة objective. وري عبد الساعة عطوش هذا أكتيد الفدية. مركا نركب نسوح وزير سؤال شهر إنه كويدي. tusaale ahaan objectiveka anigoo yacni sii saaran maanta muqdisho waxaa ugu badan ee ka dhacwa qaraxa dhacay saameynta uu geystay iyo burburka dhacay inaan soo sawiro sax ma tahay mise waxaa weydiy inaan bulshada ka qariyo oo xaqiiqda aan ka qariyo oo meeshaas ka dhacdo burburka ah cabdirasaaq baa sidaa samayn jiray
waxoogaa bulshada baa ku kacday waa uu joojiyey marka sidaas sax ma tahay waa ku saxa saaxib bulsho igu kacday darteed uma joojinin wuxuu ka yimid dood dhalinyaro reer muqdishona dhex martay oo ku imaatay cabdirasaaq hana niya jabinin ee cid culays igu saartay male asalaamu calaykum بسم الله وسلام يا دلنيرة مدرسة فردة دمانتود يوسفنا وسلام يا بعض الراس وصو أبابستين وانو مهد علنيا إن سؤالكم برواينا ويديو سؤال شيء وحوي تبين حقيقة مرولبا إن جرته يو دورستا إن حقيقة سي داوعة يسامين تاي كويا لنسو بالشدة horumarka siyaasadda kobaca dhaqaalaha iyo kordhinta garashada dadka sidee loo manage garayn karaa haddii waxaan rabaa xagga in aad loogu yara noqdo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومريم دين محمد هذا هو فرحتنا معناته أنا باستوركا أو برنامج كيسان جوجو وحاول ما عندنا راس يقول محل محمد قاسم يتيم كيسة نوحر سؤالنا كويديو سؤال شيء ذا محاول لك مساء أنا جو حالة كل ما دور دليل أو ورياله أيجو راديو بسكت دقيسنا أما فيفورت كذا إني راديو بدقيستان أي وري نقدان كدب نوحي هلين فرصة ويك أو journalist laga dhigay ama tababar ku saabsan warinimada lagu barayo weega markay dhameystaan kadib wuxuu tagayaa idaacad waaba wariyaba war uu soo tabinaya marka aan waxaa ku wareeray xirfadda qofka wariyaha laga rabo who's the journalist horta qofka goormaa la dhihi karaa waa wariye sax ah magacaasna wato aada u mahadsantihiin inta iyo toban la gaarin aan joojiyay ayaan isku dayaa su-aasha socoto uu keenay meel ka keenayba aqoontu saameyn intee la egay ku leedahay wariyaha aad iyo aad muhiim ugu tahay qofka markaad tahay saxafi waxaad rabtaa inaad wax u sheegto bulshadoo dhan qof macallin u noqon karana ma jiro qof walba in wax kaa kororsadaa rabtaa macallinna looma wada noqon karo marka uu yaraan si aad inta ugu badan oo suuragala aad wax ugu kordhin karto waa in wax badan adiga kugu jiraan wax badan inaad akhrisay wax badan inaad mawduucan u fiirsatay inaad ka fakertay inaad dad badan kala tashatay wax walba ma aqoon kartid laakiin dad yaqaano waxaas waa inaad taqaano oo markiiba buug iyo xataa kuguma filna buwaagta oo dhanna ma keensan kartid meeshaad joogto marka arrintu soo dhacday aad rabtay inaad wax ka diyaarisana goor aad wax baran karta maaha mawduucaadan weligaa ka fakerin ayaa ku hor imaanaya marka waa inaad taqaano hebel oo mawduucaas maaragtay wax ka yaqaano aniga aad waxyaabaha i anfacay waxaa ka mid a ardayda guddigeeda jaamacadda ayaan madax u ahaa qaar badan oo field kala duwan oo geology lahoo medicine lahoo ayaan aqaanay mawduucyada iga fogfog markuu mawduuc dhaco ama isagaan la hadlaa ama mid ka mid a iyagii ama macallimiintoodaan la hadlaa ama iyaga igu xiran qof kale ama ra'yi iga siiyaan ama waxbay ii tilmaamaan meeshaasaa markaa iiga sahlanaan jirtay inaan fiil walba dhaqso u raadin karo marka waa inaad leedahay aqoon badanna waa inaad isku daydaa iyo akhris badan isla markaasna aad leedahay dad aad ku laabato oo marjac ku ah oo wax kuu bidhaamaya siyaasadoo kale dad kala duwan oo kala khibrad duwan oo qaarkood waqtiga adigaadan joogin ay yihiin oodan wax badanna kala socon inaad la xiriiri karto oo markiiba ay kuu sheegi karaan arrintaan oo kalena hore u dhacday iyo waxaana laga digtoonaadaa waxyaabaha ay ka mid yihiin markii ugu horreysay waxaa laga yaabaa mashruuc markii ugu horreysay ay tahay 20 sano in laakiin uu jiri jiray 30 sano ka hor marka adigu mashruucan ayaa la bilaabay
inaad tiraahdaa ka fiican. taas waa halkaas ugu gudbay Axmed Xuseen danta qaranku waxyaaba aanay ku jirin horaan u taabtan malaynaya idaacad way samayn kartaa waxaan danta qaranku ku jirin haddaanay ka hor imaaneyn danta qaranka wax walba idaacadda ka baxaya danta qaranka ma aha laakiin waa wax walba ka baxaya waa inay ahaadaan wax aan ka hor imaan karin danta qaranka. عطار سؤال هذا سيدل له اللي كرا صحافة لجان قاعد عالم كأيضا حالة أن الوجر ومشاركنا وسكوف اللين إذا عد ومحل ده عن شغاله هذه المشاركة بحين كريم الدول لما جان قاعد كرتو especially هدي شغالها سيكون شقيان war sidii xayisiintii oo kale ah oo lacag intay ku qaataan ay sii deynayaan sida meelaha qaar lagu eedeeyo aniga uma dhicin shakhsiyan caddayn buuxdan uma hay laakiin warkeeda aad ugu soo noqnoqdaa marka hadday saas idaacaddu tahay adduunyana lama saan qaadi karto dhib badan ayaynu ku dhex jirtaa maartay waxaysan shaqo ku lahayn ku dhex jirtaa xataa sharcigaa qaban kara dalka. arrinta ku saabsan social media oo aad weydiisay gabadhaas in laga dhiciyo maaha social media dadka qoraya ha qoreen laakiin idaacadda laga rabaa waxa social media ku qoran wax ka weyn say dadku u sheegi lahayd wax Facebook ku qoran oo ka akhristay sababaan caaw television u horfariisto shaqada kale u joojiyay saa u fiiriyo malaha horaan u akhristay marka waa inaad ii kantaa analysis waa inaad ii macnaysaa waa inaad hadda kahor hadday dhaceen aad ii sheegtaa waa inaad madaxdii warkan ku dhawaaqda aad ii soo fariiso oo aad ii weydiiso waay waxaan u go'aansadeen maxaa ku kallifay hadday shaqo socon weyda maxay samaynayaan iyo wax la mid ah. arrintii qaraxa Catoosh uu ka jawaabay kaliya waxaan ku darayaa waxa weeye idaacad wax walba sharci looma dejin karo markaan BBC idin sheego kale wax walba kuma qorno wax badana inaad fahamkaaga ugala dhex baxdo la rabaa sababtoo ah idaacaddu waa nolosha oo dhan sharci looma dejin karo halkan waxa ka dhacaya iyo waxa laboratory dhexdiisa ka dhacaya iyo qaraxa dhacaya mid walba markaas laga rabaa teamka editorialku inay fariistaan oo go'aan ka qaataan musawirkan soo gaaray ma sii deyn karnaa dadka ma hordhigi karnaa mise maya markaasoo kale waxaan u nacabaha midka yidhaahda qolo heelba way sii daysay masawirkaan annagana gelin marka qoladaasa ku xukunta way adiga ajenda ma lihid soo ma garan waa in lagu yaqaano inaadan waxyaabaha indecentiga ah oo maaragtay jirka dadka ku saabsan ama ku saabsan wax aadan aqbali karin anshaxa dadku san aqbali karin oo qof dhaawac xun gaaray oo dhintay oo indhihiisa rogan yihiin inaadan soo gelin Facebook inaadan soo gelin saxaafadda marka taas waa wax mar walba ku saabsan masawirka ku soo gaaray kan ma la sii deyn karaa in la yidhaahdo laakiin sharci hadda lagu qori karo lagu bari karo lagu dhihi karo masawirka saasana sii daa kaasna ha sii deynin ma jiro. Maryan yaa journalist ah waa su-aal aada u fiican kulle xeerka saxaafadda waxbuu ka qabaa oo dhowr jeer la bedbedelay baaqaan meesha hadda marayo anigu mid aan qabo waxa weeye ama aan ku shaqeeyey ama aan arkay output markii laga hadlayo raadi markii laga hadlayo ama journal laga hadlayo ama laga hadlayo television waxaa jooga qof la yidhaaho editor ama tifatirihu waa generaalkii idaacadda mas-uuliyadda ugu dambaysa isagaa qaadanaya marka qof waa la keeni karaa dhalinyaro ah oo kulliyad saxaafad ka soo bixin oo tababar la siiyey ama usbuuc ayaad adigu sheegtay ama bil ama saddex bilood la siiyey markii koowaad oo raad muqdisho aan nimid 3 bilood ayaan la siiyey kadib laakiin joogta ahayd especially markii aan BBC da tagay marka waxa weeye qofkaasi wuxuu la shaqeynayaa qof senior ka ah wuxuu la shaqeynayaa editor go'aan ka gaaray wax alla waxa la sii deynaya no matter qofka soo qoray ama senior ha ahaada ama yuu ahaanin qof hubinaya wuxuu dhan ayaa jiro ka dambeeya marka dadkaas ayaa qabanaya hadday arkaan 10 assignment ugu horeysay inuu gabi dhacleynayana qofkan looma sameyn saxaafad shaqo kale raadsan la leeyahay waa example macnaha 10 ama
marba inta laga laakiin waxa weeye qofkaas waa la tababari karaa waana lagu soo saari karaa wariye wanaagsan iyo editor inuu asaga laftiisu noqdo over the years hadduu dadaal sameeyo marka weligaa saxaafad ha uga baqin inaad base aqoona leedahay waa loo baahan yahay basic أنا واحد إيه له دكتور وأنا هيست قفكم مركو صحافة كشقيني دكتور مركز هيستو ضد سينر كاهنا أدلى شقينيسو أو واحد بو أتصاص ميسو أدو دلالي أتصيص أيوة مركز أوكي كلهنا ممكن توستوسينيان ودير جده وريه في عنا كصبح كرتا تاسن أنت سنقول جد بيا وحن ربع جنود نسوق رن مالنا لما سؤاله أو دارن هذه جرا وقال كرا سدح سؤاله حقه كدس هاي بسم الله الرحمن الرحيم يوسف جراد iyo dadka kale ay ka qayb galaasha way maasan yihiin mar rabeen badiyo على هذا المؤمن عليه هذا سؤال ku weydiinay waxay tahay waxa media iyo siyaasiyiintu saaxiibaha noqdaan oo aan ka wado ma dhamaysanado raali waxaan ka wadaa waxa media iyo siyaasiyiintu iyo isna col noqon fasraad kale yeelan kartaa saadiradeed sidee lagu helayaa wariye xog saxan tabiya haddii media iyo siyaasiyiintu ay garab siman noqdaan sababtoo ah wariye tabiya xog saxan siyaasadda dhankeeda waxaan ku yidhi see lagu helayaa wariye xog saxan dhanka siyaasadda ka tabiya su-aasha labaad ee ku weydiinaya waxay tahay qoraal hadda kor soo qortay waxaad ku tiri saxaafadda iyo siyaasadda waxaa gala dadkaan aqoonta lahayn adiguna saa sheegtay siyaasi matiida wariyaa tahay bilowgaagii aad aqoon ma lahayn miya markaa saxaafadda kusoo biiraysay labaa su-aala ku weydiinaya su-aashu waxay tahay qoraal aad soo qortay waxaad horey ugu sheegtay inaad tidhi siyaasadda iyo saxaafadda waxaa ku biira dadkaan aqoonta lahayn saa daraaddeed adiguna mar kale oo hadashay hadda waxaad tidhi siyaasi ma ihi sababtoo ah waa lay magacaabay waana ka haray oo shaqadii waan ka tegay waad shaqadii aad ka hartay anaa ku wata mikrofoonka anaa ku wata qoraalkaad soo qortay hore waxaad ugu sheegtay siyaasadda iyo saxaafadda waxaa gala dadka aqoonta lahayn mar kale waxaad tihi waa lay magacaabay siyaasina iskuma arko ama qof la magacaabay oo meel uu ka shaqaynaya sharciyadeeda ilaalinaya shaqadaas ama ka tegay ama ka haray siyaasi laguma noqdo saa daraaddeed weli waxaa sheeganaysaa inay wariye tahay oo fasiraadeeda ay noqonaysaa markii aad qoraalkan soo qoraysana waxaad ku sheegtay tiri su-aashu waxay tahay keliya bilowgaagii wariye maadan aqoon ma aadan lahayn miya waa adigu yidhi dadkaan aqoonta lahayn ee wariyaasha noqdee labadaasaan ku weydiinay بسم الله الرحمن الرحيم وما سنين دمان كسو قيب قلياشا سيدو كلي ومهد علنا يا دبعا يوسف قرات فرصة دمانتا aanu helnay waxyaabo fara badan inaan ka faa'iidno oo aan ku faraxsanahay la kulankaaga ka bacdi waxaan rabaa hal su'aal oo dabcan iga dhex guuxaysay inaan ku weydiiyo qofka wariyaha markuu magaciga haddaan ku bilaabo filsin duceysana waaye qofka wariyaha ah markuu shaqeynayo tusaale ahaan kow saxaafaddu soo bartaa second tababar uu galaa marka xigtana wuxuu noqdaa hadday fursad u saamaxdo qof shaqeeya oo wax tabiyo barnaamijyo soo saaro bulshada ka dhex shaqeeya haddii qofkaas higsigiisa uu yahay warbaahinta inuu kusii jiro ama heer wanaagsan ka gaaro tusaale ahaan oo kale wuxuu haminayaa qofkaas warbaahinta caalamiga sida BBC-da waqti badan ah kusoo qaatay inuu ka shaqeeyo marka ka shaqeynta ama la shaqeynta warbaahinta caalamiga ah wax shuruudo ah oo ku xiran tusaale ahaan qofka inuu luuqadda yaqaano waayo aragnimo 10 sano ka badan inaa soo shaqeysay ah maxay ku xiran tahay ka shaqeynta qofka marka uu yigsanayo warbaahin caalami ah iyo xirfadiisa inuu horumariyo inuu ka shaqeeyo waa maasantii xagga maanta gacanta leedahay hal mar qof gadaal siirin
السلام عليكم دمان. السلام عليكم دمان. يوسف قراد يسوق القرياش دمان والسلام يا ميعي وحفصة أحمد. سؤاشا أعرف إن ما تفيدي وحدة هاي. هذا اللي مقلسمه. سؤاشا أعرف إن تفيدي وحدة هاي. يعني قبلها marka ay ka qayb galayaan saaxadda oo saxaafadda ama inay rabaan maxay sheegeen oo ku soo gaabinaya yani caqabadaha ay gabdhaha kala kulmi karaan dhanka saxaafadda maxay tahay siko amalana xilligii ninkaana maantana gacanta taagay cafwan bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan rabaa inaa halkan ugu mahad celiyo ambaasadoorka iyo weliba ex wasiirka sidoo kaleeto macadka raas ayaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kaleeto kasoo qaybgalayaasha oo u mahad celinaa mar labaadna ambaasadoorka u mahad celinaa jaaniskiisa qaaliga una siiyey ugu horreyn magacayga waa cabdulaahi cabdirasaaq waxaan ahay gudoomiyaha guddi fulinta ururka danwadaag ee dhalinyarada arrimaha samafalka ka shaqeeya mudane wasiir ama ambaasadoore waxaan kaa rabaa waxaa mawduucna ku saabsan yahay kaalinta saxaafadda ay ku leedahay danta guud siyaasiyiinta marka la saxaafadda saxafiyiinta marka la sigeystaa muuriyaasha muqdisho oo aad tiraahdo warniyow ma arrimaha danta guud akalka maaragtay xoogga saarteed arrimaha danta guud ma xoogga saarteed markaa tira wuxuu leeyahay ani siyaasadda waa tibiya maxaa iga rabtaa siyaasadda keliya wuxuu u arkaa inta danta guud ay tahay in siyaasadda uu ka hadlo ama madaxweynaha maanta meeshaas aaday ra-iisul wasaaraha meeshaas daafuray keliya iyo intaas ama xukuumadda ama baarlamaanka waa la furay golaha shacabka intaas keliya ayuu muhiimadda siiyaa markaad tiraahdo war arrimihii bulshada sida caafimaadka dhaqaatiir badan oo waxaa jirta ajnabi ah oo waddankeena joogta in lagu sameeyo cilmi baaris in arrintooda laftirkooda danta qaranka ka mid tahay because waxaa jiro dhaqaatiir fara badan oo waddanka iska imaatay macallimiin fara badan oo ajnabi waddanka dhiga ma laha aqoon qurusan oo loogu talagalay danta qarankeena ka mid tahay weriyaashuna arrintaas way ka jiifaan marka arrintaas maxaa kala gudboon waad mahadsan tahay hadallaa lagu soo turtuuray weli maaqan ma waxaa rabtaan inaan su-aalahan ka jawaaba soo gebagabayno mise waxaa rabtaan inaad tukataan oo nusaac kadib maya nusaac kadib maaha nusaac kale aan isla qaadano ma danaynaysaan taas yaa danaynaya okay waa hala tukado waa wadaynaa nusaac kale aan wadaynaa su-aalaha hadda shaahna waa cabi kartaan markaa soo laabataan kofe iyo shaaba xagga yaalla aad soo tukataan insha allah raallahada wax yar raallahada khiyaarta intiinaan bixin hal mar photo groupka hal mar haddaan gelaynaa hal photo group inta ka soo qayb gashay hal sawir oo mataqaanaa dadka o dhan ah halkan hal mar raallahada sawiraan gelaynaa halkaan soo wada istaago kulligiin insha allah